kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinada dunida. daawadayaal, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada aadan yabaal, halkaas uu madaxweynuhu wuxuu uga dhawaaqi doonaa sida la sheegayo howlgalka labaad ee kooxaha argagixisada. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saraakiil sarsare uu hogaaminayo labada gole ee dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa gaaray magaalada aadan yabaal, halkaasuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uga dhawaaqi doono howlgal ka dhan ah maleeshiyaadka al-shabaab oo dagaalo baaxaan ku soo qaadayay bilooyinka ugu dambeeyey deegaanada fogfog ee gobolka shabeellaha dhexe. madaxweynaha ayaa arrintaas ka xanaaqay, wacdna ku maray inuu soo afjari doono joogitaankooda gobolka iyo gobolka galgaduud, halkaasi u jihaysan doonta dowladiisu gobolada kale ee soomaaliya. dowladda soomaaliya ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyey iyadoo ka codsatay dalalka safka hore ee midowda afrika, gaar ahaan kenya, etoobiya, jabuuti, inay soo geliyaan ciidamo aan ka mid ahayn kuwa amisom oo ka dhan ah si loo soo afjaro waxay dowladdu ugu yeertay kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya muddada 15 sana soomaaliya. dowladda uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud intay jirta ayay dagaal ka dhan ah ku baaqday kooxaha kasoo horjeeda nabadda soomaaliya ee al-shabaab. dowladda ayaa guulo waaweyn ka gaartay dagaalo baahan ay la gashay gobolada shabeellaha dhexe, shabeellaha hoose iyo galgaduud iyo mudugba. dowladda ayaa guulahaas u horseedeen dadka deegaanka oo dowladda taageero baahan u fidiyey, taasoo ay ciidanka dowladda soomaaliya dadka deegaanku ay ka garab dagaalamayeen. dowladda ayaa dadka deegaanka ayaa lagu waramayaa inay ciidamada wadanka, gaar ahaan kuwa militariga, kuwa deegaanka ay gaari doonaan 80,000 oo ka howlgeli doona dalka oo idil, kuwaasoo lagu baacinayo kooxaha argagixisada ee nabadda diidan. dowladda uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dardar xoogan ku wada howlgalka ka dhanka ah maleeshiyaadka firxadkooda koonfurta soomaaliya. dowladda ayaa la sheegayaa in ay muddadii ugu dambeysay ay dalalka diriskana ka codsatay ciidamo hor leh oo ka dhan ah kooxdaas iyo ciidanka dowladda oo aada loo tiyeyey, maadaama ay dowladdu ay dagaal baahan kula jirto maleeshiyaadkaas ka dhanka ah nabadda iyo horumarka soomaaliya. madaxweynaha ayaa booqashadiisa ay tahay markii lamaad uu ku tago doorashadiisa degmada aadan yabaal, taasoo uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo inuu ku dhiirigeliyo dadka deegaanka iyo ciidamada militariga soomaaliya. goor sii horeysay ay kooxda argagixisada weerar ku soo qaada baahan deegaanka daarunicma iyo ruunanidgoon oo hoos taga degmada aadan yabaal, taasoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud carab baahan ku abuurtay weerarada isdaba jooga ay kooxdu ay ku wado fadhiisamaha ciidamada iyo dadka deegaanka, taasoo madaxweynuhu uu safarkiisu ku salaysan yahay howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka ah kooxdaas dambiilayaasha, sida uu hadalka u dhigtay waaxda warfaafinta madaxtooyada soomaaliya. madaxweynaha ayaa horboodaya duulaan ka dhanka ah kooxdaas oo muddo 5 sana u jooga farmaajo aan hal tallaabo aysan u qaadin dagaalka ka dhanka ah kooxda, balse xasan sheekh maxamuud muddo 10 bilood oo xafiiska difila soomaaliya oo ka arrimiyo hayo oo weeraro dhinac cirka iyo dhulka oo ku ekeeyay kooxda, taasoo ay kooxdu way u muuqato mid gacan ku gambada kadib markii ay aad iyo aad warbaahinta u isticmaalaysay la sheegayay jabka xoogan dhaqaalaha iyo militariyaanba ay kasoo gaaray dagaalka ay la galeen dowladda soomaaliya. madaxweynaha ayaa guulihiisu ay tahay mid isdaba jooga siday wararku ay sheegayaan, taasoo uu doonayo inuu kooxda muddada uu joogo xafiiska sanadka 2025 oo soomaaliya ay ahaato mid ka nabdoon kooxaha dambiilayaasha, sida uu hadalka ay u dhigeen dadka u dhow madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. daawadayaashana qiimaha badan, warkeen intaasna kusoo gabagabaynaynaa. amaana allah daawadayaal.